السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حيث لا دمانتين كسو دوايا على الأكاديمي إن شاء الله تعالى ما أنتو حنقان دونا بوستر كان قروح بدن قابك لو سميو أنا استعمال دونا دولادمو أدوب فوتوشوب حتى تامركي كو ريسي أصوب وقت الشانل كان فضلا سبسكرايب صار لكن أنا صار أصحابتك الاشعال كلاف لسان كان على وداك مركو وريسه حسمين دونا إن تقنا فايل كدبنا حلين هاي نيو مركا إنسان كوسو بحضو حندورنا عبركا يعني لو تلقى إن بصرك لو سميه طبعا سديتن أما كن يسديتن هاد بكارتيد بيكسلز استعمال إنسان مشان رسلوش كنا حكينا سدارتيد سدح بقى متداتي لو يدي سنسا سميد مركز سميسين مركز وريسة عسمين إن سوق هذا إنه يعني كالردي استعمال لهنا أو استعمال لهن بوستر كان مركز كالرد سوق إنه هل كان صودي أنا سوكو بيسني waxaan sameeynaa inaan marka ugu horeysa background sameyno backgroundka caadiga ah marka ugu horeysa backgroundka ku bilaabeynaa kadibna waxaan sameynaynaa mar walba horta colorka waa inuu kor ku xiga yani shapeska ama colorada waa inuu kor ku xiga mar walba sababtoo ah hadii aad hoos marisid backgroundka ka soo yani kor ka soo maraya marka waxaan sameynaynaa colorka bluega ah colorka madowga waa ka bedelaynaa waxa u bedelaynaa colorka bluega ah colorka bluega ayaa bedelaynaa meeshan colorska ku dhufanayna kadibna waa soo daaranaynaa colorkiisaas uu noogu soo baxaya ama noogu soo fuulaya meesha marka inta sameeyno waxa soo qaadanaynaa sawirkii backgroundka ahaa oo yani asagan aan ku dul sameyn lahayn muxuu ahaa backgroundka kadibna place baa leenahay marka saan noogu yimaado waxaa leenahay anoo shift alt tahayna ayaa weynaysiinaynaa marka shaashada saas noogu leekaado ayaa waxaan saaraynaa tagta kadibna waxaan sameynaynaa meeshan normal ka qoran tahay waxaan ka dhigaynaa multiply si colorka iyo yani backgroundka sawirka iyo isku dhex galo baarana inaan sameyno marka inta sameyno waxaan sameynaynaa in footer u sameyno meeshan hoose footer baan gelinaynaa footer ayaa u bixinaynaa dulaadmo kan marka waxaan sameynaynaa shape gaar ah ama group gaar ah ka dhigaynaa count asoo ku dooran ba waxa taabanaysa country j ayaa taabanaysa group ku noqonaa groupkaas marka waxa bixinaynaa footer ayaa u bixinaynaa dulaadmo marka kuwan labadan yani backgroundka ana asagana country j baa leenahay asagana waxaan ka dhigaynaa yani group ayaa asagana aan ka dhigi doonaa dulaadmo marka inkastoo ay wax ka dhiman yihiin haddana laakiin background ayaa leenahay si aysan waxba isku dhex qasmin ama aysan waxba iska kii dhex gelin sababtoo ah waxaan rabnaa inaa project maadaama uu weyn yahay oo sawirro iyo shay badan la gelinayo waxaan rabnaa inaan kala xirxirno ayaan u baahanaa dulaadmo marka inta sameyno yani footerka maadaama colorkiisa uu madow yahay colorka ka bedelanaa double click siinaysaa double click markaas siisid colorkiisa colorka noocaas ayaad ka dhigaysaa markuu saa kugu soo baxo waxaan sameynaynaa sawirka backgroundka la socday sawir baa la socday backgroundka marka ugu horeysa sawirkan soo qaadanaynaa anagoo backgroundka joogna ayaa waxaan soo qaadanaynaa waxaan soo gashanaynaa sawirkii file baa tagaysaa kadibna waxaa leeyahay place embedded ayaa ku dhufanaysaa markuu saa kugu soo baxo sawirka cunuga yarkaa ama waxaan sameynaynaa maadaama backgroundkii gadaala aan ka jarnay oo halkan noogu yaalo waxaan sameynaynaa inaan soo qaadno oo halkan aan keeno maadaama backgroundka background aan markii hore aan diyaarsanayn marka country t baa leenahay xoogaa yar waa weynaysiina ilaa shaashada adoo shift alt tahay ilaa intaasoo kale ayaan geenaynaa centerkana waa geenaynaa ama centerka ayaa ku aadinaynaa marka intaas sameysid kadibna waxaa leedahay okay ayaa leedahay marka markaas sameysid armaysid waxaan sameynaynaa inaan yani xoogaa color gradient waxa la yiraahdo aan ku darno oo shape-ka iyo sawirada wax oo dhan aan gradient ku darno marka halkan jooga waxa taabanaysaa meeshan new layer ayaa ku dhufanaysaa click ayaa ku siinaysaa waxa ku dhufanaa gradientiga kadibna waxaan ka soo dooranaynaa yani backgroundka ayaa rabtid ayaad basic ku dhufanaysaa kadibna kan dhexe saddexdooda kan dhexe ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaan sameynaynaa inaan inta meesha hoose tagna aan kor u soo qaadno ilaa halahaas ka inaan يعني gradient ku furno xogaa mugdi ayaa galay mugdigaas ayaa u baahanaa marka dulaadmo marka intaas midowga ka rabnaa marka intaas sameysid waxa leenahay shape soo qaadanaynaa halkan ayaa keensanayna shapekeena ilaa halahaas oo kale waa deeqsiinaynaa marka saas sameysid waxa leenahay filkiisa waxa leenahay no color ka dhig strokegiisa waxa ka dhigtaa colorka cadeyska ah oo kan meesha noo yaala waxaa ka dooranaysaa siskiisa waxaan ka dhigaynaa aduu yaraan 3 waan ka dhigaynaa
marka inta samaysid Ctrl J ayaa leedahay copy kale ayaa ka qaadanaa Ctrl T baa leedahay kadibna hoos ayaa u soo jeedisaa adoo shift alt haya qaab isla eg ayuu yareeyaa kadibna okay baa leenahay kadibna maadaama stroke aan dooranay marka hore stroke buu yahay marka waxaan rabnaa inaan fill ka dhigno ama stroke-giisa u deynayna marka intaas sameysay stroke-giisa ba u deynaysaa marka meeshan waxa ku qoraynaa si uusan ugu khaldamin stroke ayaa ku qoraynaa meeshan oo layer-ka meeshan kale oo kan oo yani aan sawir karno inaan dhex gelino xalinahay shape ayaa ka dhiganaa maadaama uu aan sawir aan dhex gelin doono dilaayadmo marka kan ayaa leedahay right click ayaa leedahay kadibna waxa leedahay resize layer ayaa ku dhufanaysaa marka resize layer ku dhufatid intaan resize layer aanan dhihin waxa rabnaa shape-keena inaan yani aan round u sameeyno labadan shape aad dooranaysaa stroke iyo shape-ka baahan mar adoo shift haya ba click ku siinaysaa marka labada aad doorato oo labada aad saartid calaamadda highlight marka saartid waxa leenahay round ba u sameeynaa meeshan eberka oo round waxaan ka dhignaa 10 round waxa la yiraahdaa wareeg baa la yiraahdaa wuxuu sameeyay inuu round sameeyo inuu xogaa geesaha ka soo wareego stroke waxa moodaa inuu hal yahay asaga waxaan ka dhignaa 3 oo kala ka dhignaa marka 3 ka dhigtid waxa leedahay left click dheh resize layer kadibna marka resize layer tiraadid qaybta waxaan soo qaadanaynaa qaybta rectangle-ka ay ku qoran tahay oo dash baa soo qaadanaynaa kadibna intaana highlight saarayna kadibna waxa leedahay calaamadda delete ayaa ku dhufanaysaa waa ka saarayna meesha haddana ilaa inta halahaas oo kale waa adoo jooga stroke way stroke waa inuu highlight ku saarnaa haddii meel kale saadid wuxuu sameeyaa meeshaas shape-ka da ku dhuftay shape-ka ayuu jarayaa marka inuu shape-ka naga jaro marno stroke ayaa rabnaa inaan jarno marka waxa leenahay backspace baa leenahay ama delete ayaa leenahay marka Ctrl D ayaa leedahay si uu section-ka markii xagan ku saarna uu ka qaado marka sameeysid waxaan leenahay horta shape-ka marka ugu horeysa shape-kan waxaan leenahay fill color ayaa ka dhiganaa maadaama arno inaan hadhow sawir dhex gelino stroke shape-kan dul tagaynaa kadibna waxaan leenahay stroke-giisa ka dhigtaa yani fill color ayaa ka dhiganaa marka intaas sameeysid waxaan sameynaynaa stroke iyo shape-ka ayaa highlight saarayna kadibna dhankaani bidix ayaa xoo soo durkinaynaa dhanka bidix marka soo durkisid waxa leenahay alt ayaa qabanaysaa wajiisa adoo alt haya ayaa jiisa wuxuu ka sameeyaa copy uu ka sameeyaa adoo alt iyo shift haya ayaa hadana aad jiisa ilaa halahaas oo kale ayaa geenaysaa xogaa waxa naga haray fill color-ka adoo alt haya ayaa soo jiidaysaa marka halahaas aad keentid waxa moodaa xogaa yar inuu geeska u badan yahay marka ugu horeysa horta waxaan sameeynaa shape-ka u koreeya ilaa shape meesha ka soo bilowdo ba shift adoo haya ba click ku siinaysaa markuu dhamaantiis highlight ku saaro Ctrl J ayaa leenahay horta shapes ayaa bixinaa marka ugu horeysa group ba ka dhignaa si isan hadhow iskaga khadamin marka sameeysid waxa leenahay Ctrl T ayaa leedahay xogaa halkan soo badiyaa leedahay ilaa marka aragtid inuu center ka yimaado kadibna okay waa leenahay marka inta sameeyno waxaan sameynaynaa shape-ka u koreeya ayaa click ku siinaysaa maadaama arabna sawir soo dhex gashano kadibna waxa leedahay fail kadibna waxa leedahay place embedded ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxa leedahay books ba ku dhufanaysaa kadibna waxa leedahay place sawirkii uu ku dhex keenay meeshan adoo shift waxa qabanaysaa shift alt kadibna qaab islaag ay yaraanaya kadibna shape-ka ayaa dul keenaysaa kadibna okay ayaa leedahay marka waxa rabnaa sawirka iyo shape-ka inaan is dhex gelino sawirka waa kan shape-kana waa kan u koreeya marka waxa leedahay tigta saar kadibna waxa leedahay adoo sawirka jooga waxa leedahay left click kadibna waxa leedahay clip mask ayaa leedahay saasu sawirka soo galiya gudihiisa marka waxa tagaynaa shape-kan labaad kadibna waxa leenahay qaabka hadda kale place baa leenahay kadibna place embedded ayaa leedahay marka meesha tagtid waxa la soo qaadanaysaa qalimaantan qalin meesha ku qoran tahay kadibna sawirka halkan soo gashanay sawirka marka qalimaanta qalinka kaliya u baahanahay oo diskiga ku jira marka ku aadino waxa leenahay tigta saar kadibna waxa leedahay qalin waxa leedahay left click waxa waa ina shape-kii uu ka hooseeyo shape-kii hadda aad tigta ka qaadno shape-ka waa inuu hoos yaala sawirka rabtid inaad yani shape-ka rabtid inaad dhex gelisid waa inuu hoos yaala shape-ka marka waa kan marka anoo sawirka joogna waxa leedahay clip mask ayaa leedahay marka xogaa sawirka waxa moodaa inuu kor jiro xogaa gadaal ba u soo celinaynaa marka aragtid inuu qaabka lagu tagay ku fadhiyo waxa leedahay okay kadibna waxa leedahay shape-kan saddexaad ba sawir soo dhex gashanaynaa
click baan ku siinayna kadibna file baad tagaysaa kadibna waxaa leedahay place embedded kadibna waxaan sameynaynaa boorsadan ayaan soo gashanaynaa place baa leedahay marka boorsada halkaan halahaas oo kale shift alt qabo xogaa sawirka soo yare ilaa adu halahaas oo kale gee kadibna waxaan sameynaysaa left click ayaa leedahay right click ayaa leedahay kadibna waxaa leedahay clip mask ayaa leedahay marka saa kuu soo dhex galo qaabkii lagu talagalay ama qaabka u baahnayn ayaan u sameynaa marka gaan maadaama shape-ka aan ka dhex baxnay iska soo xir marka waxaad tegaynaa meesha u koraysa shape-ka meesha u koraya ayaa tegaynaa kadibna waxaad sameynaysaa waxaad soo qaadanaysaa tape tool-ka kadibna meeshana waxaad ku qoraysaa buugaag afar waaweyn ah buugaag farta waxaa moodaa inay madow tahay kanto e baa leenahay kalarka ku dhufanaynaa kadibna kalarka cadeyska meesha yaala ayaa click ku siinaynaa kadibna okay baa leenahay marka halkaan kala ka maqan marka waxaan sameynaynaa fartoo kale waxaan ka dhigaynaa ugu yaraan 10 oo kale ayaan ka dhigaynaa kadibna okay baan leenahay qaabkii loogu talagalay ayuu noogu sameysmay waa qoraalkii kadibna copy baan ka sameynaynaa move tool-ka qaadanaysaa alta adoo haya baa qoraalkan jiidaysaa markuu halkaa ku yimaado waxaa ku qoraysaa meeshaan qalimaan marka meesha saa kugu qormo centerka ayaad geynaysaa centerka ku aadi marka center ku aadisid haddana alt adoo haya qoraalkan jiidaysaa ilaa halahaas oo kale waa koobiga qaabka fudud loo sameeyo kadibna waxaa qoraysaa boorso ayaa ku qoraysaa kadibna waxaa leedahay okay marka waxaa dhammaanay dhammaan agabkiina looga baahnaa ama xayisiinta intiisa u badnaa keliya waxaan oo hadhay footerkan marka footerka waxaan sameynaynaa inaan shape-ka aan soo koobiyeysanno iconada Facebook iyo maadaama waqti badan ay naga qaadanayso shape markaan soo qaadano control v ayaa leenahay control v markaa tiraadid whatsappkaa soo qaadanay whatsappka gaanoo dhig kadibna waxaan soo qaadanaynaa iconada kale Facebook iyo waxyaabahaas lamid ahaa control v waa leenahay markuu noo soo koobiyeysmo ayaa asagana halkaan aan soo dhigaynaa marka intaas sameysid waxaan sameynaynaa inaan qoraalkii magacyadii iyo lambaradii halkaan aan ku qorno marka tape tool-ka soo qaadanaynaa kadibna meeshaan click ku siinaynaa kadibna waxaan ku qoraynaa lambarkii nagala soo xiriiri lahaa maadaama farta ay cadeys tahay farta waxaan ka dhigaynaa madow kadibna okay yaa leenahay plus 252 marka maadaama numberka qoranay waxaan sameynaynaa cabirka ku qoran yahay baan rabnaa inaan gaabno 10 buu ku qoran yahay 7 ka dhig marka 7 ka dhigtid halahaas kala geen kadibna copy aan sameynaynaa waxaan rabnaa inaan halkaan qoraal kale oo yani stationery magaciisa ku qorno waxaan leenahay Axmed stationery waa iska sample aan ka wadno aan meesha ku qoraynaa farta waxaa ka dhigaysaa xogaa weynaysiinaynaa fartoo kale 8 kale ka dhig kadibna meeshaan satarka gee marka waxaa moodaa qaabkii loogu talagalay inaan u dhameynay marka hadda kalaradan uma baahni move baa iska siinaynaa marka waxaan u baahannahay keliya qoraaladan footerka maadaama folder footer la yiraahdo aan sameynay waxaa ka bilaabaynaa meesha u koraysa ilaa meesha uu kasoo bilowday ilaa meesha uu kasoo bilowday oo ah shape-ka whatsappka waxaan leedahay shift adoo haya click ku siinaysaa kadibna waxaa geenaysaa meeshaan footerka ayaa geenaysaa waxaa sameynaysaa waa soo jiidaysaa folderka footer la dhaho ayaa dhex keenaysaa marka folderkaasaa dhammaantiis isugu keenay footerka kana soo laab haddaad isha ka qaadi footerka dhammaantiis waa tegaya marka waa qaabka u baahnayn marka intaan ilaa halkaan anoo shift haya click ku siinaa kadibna group baa u sameynaynaa ama control J yaa leenahay kadibna waxaa ku qoraynaa qoraal oo kale waa in qaabkan uu kugu nidaamsanaadaa hadhow markaad sameynayso group aan isugu xidhaa maadaama group haddaan isugu xirno waxaa naga saacidaysaa inaan kaa rabno hadda aan xirno oo tigta saarno kaa rabno haddeer wax ka bedeli karno marka qaabka markay kugu nidaamsan yihiin wax badan ay kaa caawinaysaa waxaan rajeynaya in casharka wax badan ka faa'iideen fadlan subscribe saar like noo saar asxaabtaadana kala la wareego asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh